wafdigan uu hogaaminayo wasiir dowlaha difaaca jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Ali Xagaa uu kamid ah safiirka dowladda Djibouti u fadhiyo Soomaaliya Dr. Aadan Xasan Aadan iyo xubno kale ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wafdiga waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno kale ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Jubbaland soo dhaweynta kadib wafdiga ayaa la geeyay qaybta nashashada ee garoonka magaalada Kismaayo iyadoo halka uu horeen saxaafadda kula hadlay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay wafdiga uu hogaaminaya wasiir dowlaha difaaca Soomaaliya iyo xubnaha ka socday safaaradda dowladda Djibouti ee soo gaaray magaalada Kismaayo waa maanta sharaf weyn oo ah inaan soo dhaweyno oo booqasho noogu yimaado safiirkana dowladda Djibouti Mudane Ambassador Aadan Xasan oo markii ugu horeysay ay tahay Kismaayo booqasho noogu yimaado dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale waxaa socdo wasiir dowlihii gaashaandhigga oo asigeena noo yimid oo dabcan asaga xaruntiisa oo dalka ka maamulo xarun ka mid ay tahay Kismaayo si gaar ahna gacan weyn ugu leh dhismaha ciidamada kala gedisan iyo abuurista qaybta 43 ee isku dhafka mudanayaal imarweyn soo dhawaada ambassador soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow wasiir dowlaha difaaca Soomaaliya Maxamed Ali Xagaa ayaa sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay ay Kismaayo yimaado isla markaana uu yimaado hawlo la xiriira dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo hawlo kale waxa farxad ah maalintii aan bilaabaynay samaynta saldhigga 3-aad ee Kismaayo integrationkeeda magaalada iyo airportka xitaa laftiisu sidoo ahaa si ka duwan maanta inuu yahay oo horumar fara badan ka muuqdo waxa kaloo qorshaha noogu jirtay iyadana maadaama aan wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ah integration ahay dekada Kismaayo lafteeda oo hawlo baraakiib ay waqti hore ku fariisteen oo ciidanku lahaayeen sidii bal iyadana maadaama ay nimankan inoo dowladnimo dhisan oo taama ay yihiin ay noogala caawin lahaayeen dad gaar ah unba wax ka qabteen ugu dambeyd waxa goobta ka hadlay safiirka dowladda Djibouti Soomaaliya Dr. Xasan Aadan Xasan ayaa goobta ka hadlay waxaana hadaladiisa kamid ah sida tan runtii anaga sharaf noo tahay inaan soo booqano dowlad goboleedka Jubbaland oo aan in far badan runtii ku hameeyay inaan nimaadno siyaarada aan ku nimadnay Jubbaland laba dhinac ayay leedahay dhinaca koobaad waa wasiir dowlihii difaaca oo aan wada socono oo haddaan nahay Djibouti shaqo weyn aan kala hayno dowladda federaalka arrimaha difaaca qaranka ciidamo reer Djibouti ayaa jooga Soomaaliya ciidamadaasi siyaabo kala duwan ay u joogaan qaar difaac bay u joogaan iyo nabadeyn qaar waxay u joogaan tababaro qaarna maaritaanay taageero maaritaanay farsamo marka wasiirka waxaan dabcan inaan la soo indhayno ciidamada maaritaanay halkan jooga dowladda Jubbaland oo uu wado isku dhafkooga qaran Abdul Abshir Yusuf TV-ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Kismaayo